السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب channel كعداون سواق قيس كسر دواada dilana maanta waa maalin cusub muuqaal cusub iyo magaalo cusub halkan aan ku sugannahay waxa weeye waa magaalada Zanzibar maanta waa maalintii labaad ee aan halkan joogno waxa weeye dooniyahan saad arkaysaan dalxiisayaashan oo dhan raacayaan ayaan anaguna raacaynaa nimanka asxaabtayna waa kuwa iyaguna waxa weeyaan waxay bixinayaan lacagtii doonta waxa weeyaan waa $50 baan laga wada qaaday saddexdooda $150,000 oo lacagtooda weeyaan marka waxa weeyaan waxay nageynayaan laba island mid waxa la yiraahdaa Nakubenda Island midna waxa la yiraahdaa Brisbane Island labada island baan tagaynaa maanta waxa weeyaan muuqaal aad iyo aad qurux badan baan ka soo sameyn doonaa waxa weeye saad arkaysaan doonta baxaysa ma ahaana tayadu waa tan kale waxa weeye doontan ku boodaynaa maanta waxaad ka soo boganaysaan Zanzibar runta intii faraha badneed aan Tanzania joognay kolba waxaan tagaynay waxa weeyaan meelaha landscape-ka ee quruxda badan laakiin marna aylaanada quruxda badan ee Zanzibar ee dalxiiska loogu tala galay maanaan tigin marka waxa weeye doontan aan raacaya in yarba la lugeynaya waxa taboobi waxaan jeclaabaa inay bariga taala baasho waayo marna dabaal baan ugu tala galay marna ugumaan tala galin waa kan doomaha kale dad baa isla raacaya laakiin tani annaga noo karaysan tahay waa doon annaga noo xidhan waxa weeye waa doon innaga inoo jeeni qaaran annaga inoo jeeni qaaran tahay baddaanu jeexaynaa hadda baddan jeexaynaa maxaa loo leeyahay hakuna matata boorsadan ka shakiinay waxa sanadkii dumarka soo tirkanaya may boorsadan waa la wada isticmaalaa waa tii rag iyo dumarka way dhaqaaqday doontu doomba marayso badda doomba marayso doomba marayso badda waxa weeye adduunyadan ilaahay raggan meel walba way ku safreen waxa weeye waan ku faraxsanahay annagoo ceeri gaabo iyo xiis iyo meedh ku soo safarnay in maanta aniga iyo dhakhtar iyo maaweel aan ku safrayno meesha la yiraahdo Tanzania iyo Zanzibar hakuna matata waxaan leeyahay saaxiibayaal waxaan u soconaa meeshan waa Brisbane Island and Nakubenda Mimizana ninkanina waa ninka mindida daabkeeda haya bro where we are going I'm going to Nakubenda you are the driver today yeah isaga waxaan kuri isaga wadaya ninkii wadi jiray saad arkaysaan islandkii baan soo gaadhnay waxa weeyaan islandkan waxa la yiraahdaa Nakubenda Mimizana waa ujeedada caashaqeena intaas ugu jirta laakiin waa kan waa u dhownahay imika waxa weeyaan halkan waxoogaa baan ku isbeen garaynaynaa waqti yar oo fiican markaan yaro joogno doonteedu halkan ay nagu sugaysaa kadibna Brisbane Island kan tagayna laa ilaaha illa allah jawigani macaana ma jannadii ifka ma ka gabiyaysaa jannadii ifka yaay haradii adduunkay jacayl baan ku qabay الله قروح بدنا ماشي ما بارادايس بقى عدن كو حيدان بارادايس جنة jawigan markaad aragtay maxaad soo xasuusatay maamado يا ما soo xasuustay heestii oran jirtay jacayl taleeri ku beerbay taariikh bada iga raacisay halka ay ku taalo badda waxaad ka garanaysaa badaha kale waxyaabaa kaga duwan tahay nadiif weeyaan dhulkaad arkaysaa dhulka oon soo gaadhnay islandkii aan u soconay
أصحابي amazing aylankii dhexdiisii baan taaganahay waxa weeye saad arkaysaan meel kasta teendho yar baa ka dhisan teendhooyinka yar waxa dhisaya qof kasta doontu soo raacay ayuu xaq ugu leeyahay qofkii doonta ku soo qaaday inuu sameeyo oo halka ku yara harsado marka anaga ninkii doonta nagu soo qaaday waa kan you are building it yeah for us yeah tent buu noo sameynaya waxa weeye waa doontii anagu aan la soconay halkan baan dhagax dhiganay waxa weeye saad arkaysaan waxa soo doonyaa qof kasta doontu la socday tentkiisa ku beegan marka waxa ilaa 2 saacadood 3 saacadood baan joognaa waan siga dabaalanaa waqti aad u fiican baan ku qaadanaa صادر كذا سحب القنوات يعني باكيج كي وحي لعقته صوت حني اي cuntada ku jirtay waa ka inay sameeyaan kiisan waxweeyaan marka ay dhameystiraan xagan bay noogu keenayaan dabadna waa cuni halkan aan soo gaadhay saaxiibada sadarkiisa waxa la yiraahdaa Grayson Island waxa weey imikay doonta soo istaagtay waxoogaa baan soo soconay ilaa 30 mirir waxa weeyaan halkani waa halkii casri jaahiligii lagu xidhxidhi jiray dadka adoomaha ee Yurub iyo meelaha loo dhoofiyo Afrikaanka waxa weey runtii islandkani aad iyo aad u qurux badan yahay una ka duwan yahay islandadii hore aan tagnay sababtoo ah waxa weey islandkani isagu waa buur u saaran yahay kiyaanu hadda toona ka nimi isku yimi oo waxa weey biyaha buuxiyay laakiin runtii kani aad iyo aad u qurux badan yahay gudahaanu gali doonaa oo ay tusi doonaa runtii taariikh fara badan ayuu islandkani leeyahay ee waxa weey la socdaa waxaan gudaha u soo galnay Grayson Island waxa weey halka laga galayaa oo halkan dalxiisayaal aad u tiro badan baa jooga boor halkaas waxa ku qornaa no outside food or drinks are allowed waxaan u maleynayaa in gudaha cuntooyin lagu iibinayo laakiin halkan baa laga galayaa waxa weeyaan aad u qurux badan meeshaan gudaha u sii galaynaa kale waxay saadarkiisaan halkan aan soo gaarnay waa gudihii lacag baa lagu soo galayaa meeshan waxa lagu soo galayaa 16,000 oo lacagta Tansaaniyaanka marka waxay noqonaysaa ilaa $7 meelaha waxa weeyaan gudahan soo galnay kaar yar baa lagu siinayaa waxa yaala diimam aad u waaweyn oo lagu qiyaasay midkiiba inuu jiro 100 sano ama 200 sano ayuu jiraa waxa weeyaan diimam aad iyo aad u waaweyn arkaysan waxa weeyaan diimkan wuxuu jiraa baa la yiraahdaa ilaa iyo 100 sano jiraa 100 sano wax ka badan buu jiraa waxa weeyaan waa diim aad iyo aad weyn weligeed diim intan leeg ma arkin
meeshan taariikhdeeda haddaan wax yar idinka dabageeyo meeshan runtii waa meel aad iyo aad u taariikhi ah meeshan malaayiinkii afrikaanka ahaa ee maraykanka iyo ingiriiska reer yurub ay slaveska ka dhigteen waa meeshii lagu xidhi jiray ee laga qaadi jiray doonyaha iyo maraakiibtu halkan bay iman jireen kadibna halkan baa laga daabuli jiray halkan sababta ay u doorteen waxa weeyaan ay uga dhigaan islandkan inay jeel ka dhigaan waxa weeyaan sababtoo ah meesha afarta koonaba waxa ka xiga badan waa cirkaa dheer dhulkaa dheer qofka halkan lagu xidho waxa weeyaan ilaa iyo doontii la saaraya ay u timaado meel looma bixi jirin halkan waxa yimaada caddaan aad iyo aad u fara badan oo taariikhda halkan waxa weeyaan soo ogaaday oo waxa weeyaan soo baadha oo yimaada sidoo kale halkan waxay caan ku tahay waxa weeyaan diimam aad u waaweyn oo ka ugu yar uu yahay 150 sano u jiro iyo 200 sano ayaa halkan jooga diimamka halkan jooga waxay ka waaweyn yihiin dadka halkan maraya iyo aabayaashoodba waa laba generation bay ka weeyeen saddex generation bay jiraan waxa weey meeshan runtu waa meel aad iyo aad u taariikhiya muuqaalkeena halkan baan ku soo xidhi doonaa muuqaalkan haddii ku soo gaaro like subscribe share kana mid noqo asxaabta ku xidhan qays qaysar aad iyo aad baa u salaamintii saaxiibaya